kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal galab wanaagsan meel walbood adduunka ka joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub saaxiibayaal sheekooyinka aan soo qaadi doonana maanta waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo oo ugu dambeyn gaaray xerada tababarka Manchester United iyadoo ay wehliyaan wakiilkiisa Jorge Mendes iyo weliba tababarihiisii hore ee Sir Alex Ferguson wadaxaajood halkaasi ka furmaya iyo waxa markaasi ay xaaladi maraysa ayaan sidoo kale soo gudbin doonaa waxyaabaha kale oo aan eegi doono saaxiibayaal waxaa ka mid ah Robert Lewandowski oo markii ugu horeysay wax laga weydiiyay tan iyo markii uu ku soo biiray Barcelona xasuuqii kooxdiisii hore 8-2 ay kaga adkaatay kooxda Barca wixii uu ka yiri xidiga xulka qaranka Poland ayaan sidoo kale soo gudbin doonaa Yaya Toure oo ku soo wajahan horyaalka Premier League iyo kooxda uu ku biirayo ayaan sidoo kale soo qaadi doonaa saaxiibayaal horyaalka Premier League bilaabashadiisana waxaa ka harsan kaliya 10 maalmood isagana waan eegi doonaa sheekooyinka kale aan soo qaadi doono saaxiibayaal waxaa ka mid ah kooxda PSG oo markaasi shaqo gelinaysa dhakhtar dhanka cilmi nafsiga ah si kooxdu ay ugu guuleysato tartanka UEFA Champions League waxaan sidoo kale eegi doonaa saaxiibayaal xidiga la yiraahdo Iniesta cusub ee markaasi ka tirsan kooxda kubadda cagta Liverpool kaas oo aan ahayn Trent Alexander-Arnold sheekooyinkaas ayaan soo qaadi doonaa saaxiibayaal daqiiqadaha soo aadan balse intaanan sii guda gelin waxaan idinka dalbanaynaa inaad like inoo saartaan muuqaalkan siina gudbisaan haddii ay tahay markii kugu horeyso aadna soo booqatana waxaan ku leenahay soo dhawow oo subscribe inagu dhiirigeli mahadsanid aynu ku bilownay saaxiibayaal sheekooyinka ugu waaweyn ciyaaraha maanta waxaa markaasi qayb ka ah Cristiano Ronaldo oo uu la socdo Jorge Mendes ayaa goor dhaweyd gaaray xarunta tababarka ee kooxda Manchester United iyadoo markaasi go'aan la sugayo ku aadan mustaqbalka CR7 waxaana sidoo kale kulankaasi ka dhacaya xerada tababarka ee Carrington markaasi ku wehlinaya maamulka Manchester United Cristiano Ronaldo iyo wakiilkiisa macallinkii hore ee kooxdaasi Sir Alex Ferguson xidiga xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa ka mid ah xidigaha markaasi mustaqbalkoodu uusan sal fadhiya lahayn waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka maqnaa kooxda Manchester United iyadoo uu maanta gaaray garoonka tababarka Manchester United markii ugu horeysay tan iyo dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore waxaana hadda wada hadallo ay u bilowdeen isaga iyo maamulka kooxdaasi oo go'aanka madambeys ah ayaa laga gaarayaa mustaqbalka ciyaaryahanka Portugiiska ah Ronaldo oo horey markaasi uga dalbaday Manchester United in la fasaxo si aysan markaasi u seegin inuu ka soo muuqdo tartanka Champions League ayaa si weyn loola xiriirinayay inuu ku biiri doono midkood kooxaha Atletico de Madrid iyo Sporting Lisbon 37 sano jirkan oo markaasi ka maqnaa kulamadii saaxiibtinimo oo ay kooxdu ciyaartay ee isu diyaarinta xilli ciyaareedka cusub iyo tababarkii ciyaartoyda Manchester United ay ku guda jireen 20 maalmood ee la soo dhaafay ayaa markaasi goor dhaweyd gaaray xerada tababarka Manchester United ee Carrington halkaasoo ay ku sugan yihiin haatan isaga iyo wakiilkiisa Jorge Mendes wargeyska The Sun ee ka soo baxay Ingiriiska ayaa xaqiijiyay in haatan ay socdaan wada hadallo u dhaxeeya Manchester United iyo Cristiano Ronaldo oo uu markaasi garab fadhiyo wakiilkiisa Jorge Mendes waxaana weli ay markaasi doonayaan Mendes iyo Cristiano Ronaldo in loo ogolaado in ciyaaryahanka la iibiyo oo uu ka tago kooxda isla markaana uu ku biiro koox ka qayb galaysa tartanka UEFA Champions League maadaama tartankaasi ay ka maqan tahay Manchester United warbixinadu waxay intaa ku darayaan saaxiibayaal in Cristiano Ronaldo uu markaasi diiday qorshe Manchester United ay ku doonayso in ay ku sii dheereysay heshiiskiisa oo markaasi ay ku darto sanad kale si markaasi ay ugu qanciso inuu sii joogo Old Trafford ama haddii ba loo baahdaba markaa lagu diro ama oo uu u soo ciyaaro koox Champions League ka qayb galaysa kadibna sanad kadib ama xilli ciyaareedka kan xiga uu dib ugu soo laabtay kooxda Manchester United laacibkuna waxa uu markaasi go'aan cad siiyay Manchester United waxaana uu doonayaa la leeyahay in uu ka tago kooxda United warkana waa uu cadeeyay Cristiano Ronaldo oo ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda tartanka UEFA Champions League ayaa la rumaysan yahay saaxiibayaal in uu markaasi ka cararayo in uu ku soo dhawaado xidiga ay xafiiltamaan ee Lionel Messi oo aan wax badan markaasi ka dambeeynin dhanka gool dhalinta tartanka UEFA Champions League sidaas darteedna waxaa markaasi uu qorshihiisu yahay inuu u ciyaaro koox ka qayb galaysa Champions League ciyaaryahanka la yiraahdo CR7 Ronaldo Messi ku xiriira marka tartanka UEFA Champions League gool dhalintiisu markaa doonaya inuu ka sii dheeraado Lionel Messi oo markaa ku soo dhow suxufiyiin markaa ku sugan banaanka garoonka tababarka ee Carrington oo ay Manchester United leedahay ayaa sawirro ka soo qaaday Ronaldo iyo wakiilkiisa Jorge Mendes oo markaasi saaran baabuur isla markaana sii galaya xerada tababarka Manchester United waxaa sidoo kale halkaas ku sugan baa la leeyahay tababarihii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson oo la rumaysan yahay in maamulka Manchester United ay ugu yeereen tababare Sir Alex in uu markaa
ku cadaadiyo Ronaldo inuu sii joogo garoonka Old Trafford. Sheekooyinka kale ee ku saabsan ciyaaraha saaxiibayaal oo aan soo qaadi karna waxaa ka mid ah ninkii Robert Lewandowski ahaa ee markaasi ku cusub kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa wax laga weydiiyey bal arinta ku aadan xasuuqii 8-2 ee ay hadda ka hor u geysteen kooxda kubadda cagta ee Barcelona markii uu ka tirsanaa kooxda Bayern Munich. Lewandowski ayaana yiri kama aanan hadal 8-2 aan ku garaacnay Barcelona tan iyo markii aan ku soo biiray kooxda Barca. Muddo bilooyin ah oo markaasi la isla dhexmarayay ciyaaryahankan inuu ka tagayo kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa ugu dambeyn Robert Lewandowski waxa uu ku biiray kooxda Barcelona kadib 8 xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa naadiga Bayern Munich ee wadanka Jarmalka. Markii uu ka mid noqday kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa wax laga weydiiyey saaxiibayaal Robert Lewandowski bal inuu xusuusto xasuuqii 8-2 ee ay markaasi ku garaaceen kooxda kubadda cagta Barca, waxaana uu yiri waa inaan qiraa in aanan ka hadal arintaas tan iyo markii aan imid Barca. Taasi waa hore ayay ahayd, waxaana fiican inaan dib loo eegin. Taasi waa habka ugu fiican oo aan u fikirin ayuu leeyahay weeraryahanka xulka qaranka Poland ee Robert Lewandowski. Lewandowski oo weerarka ka ciyaara ayaa rumaysan oraahda Soomaaliyeed ee oranaysa wax tagay tiigsimaad ma leh. Marka 8-2daas waxna dhaafay waa uu leeyahay ee hore aan u soconno si habka ugu fiican aan u fikiraynana ha noqdo inaan hore u soconno oo gadaasheena wixii aan soo dhaafnay aanan eegin saaxiibayaal. Dhanka kalena saaxiibayaal James Sonis oo markaa u ciyaari jiray kooxda Liverpool ayaa dhibaatada Manchester United haysata waxa uu ku eedeeyay milkiilayaasha naadigaasi, waxaana uu sheegay in 10kii sanadood ee ugu dambeeyay ay qaateen go'aamo aad u liitay oo kooxda markaasi hoos u dhigay. waxa uu tusaale u soo qaatay labada ciyaartooy ee kala ah Juan Mata iyo Phil Jones oo markaasi uu sheegay inay cadeyn buuxda u yihiin fashilka Red Devils. waxa uu rumaysan yahay inay ahayd in aanay ciyaartooy kubaddoodu sidaas dhulka u gashay aysan markaasi ka sii ciyaarin garoonka Old Trafford. James Sonis waxa markaa uu sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay arintaasi, waxaana uu sheegay in uu aad ula yaabay Manchester United markii sanadkii 2019 ay heshiis cusub ka saxiixatay Juan Mata, kadibna mar kale isaga oo kursiga keedka sii fadhiya ay heshiis cusub siisay kaasoo markaasi ahaa sanadkii 2021. waxaa kale oo kasii yaabiyey sida uu yiri in Phil Jones oo ilaa iyo haatan sii jooga garoonka Old Trafford ay la yaab ku noqonayso isagoo ku dhawaad 3 sanadood aan wax kubad ah bay ciyaarin oo dhaawacyo markaasi la jiifay, maadaama ay ka saxiixdeen heshiis cusub oo kusii haynaya garoonka Old Trafford ilaa sanadka 2023. marka maamulka Manchester United ayuu James Sonis aad u eedeeyay kuna tilmaamay inay yihiin kuwa la degay kooxda Manchester United isla markaana xidigo baaba ah oo kubaddoodu ay aad u luntay ay markaasi heshiisyo cusub ka saxiixayaan iyagoo kursiga keedka sii fadhiya. dhinaca kalena saaxiibayaal ninka la yiraahdo Harvey Elliott ayaa markaasi loo arkaa inuu yahay Andres Iniesta cusub ee kooxda kubadda cagta Liverpool. ninka markaasi ka caawiya ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Liverpool in markaasi ay horumar ka sameeyaan dhanka xirfadaha iyo tacticada, oo la rumaysan yahay inuu yahay ninka ka dambeeya guulaha kooxda kubadda cagta Liverpool isla markaana ah gacanta midig ee tababara Jurgen Klopp ayaa markaasi warbaahinta isagoo la hadlay yiri ma jiraan waxyaabo badan oo sidan oo kale ah kubadda cagta, laakiin Harvey Elliott waxa uu leeyahay astaamihii Andres Iniesta oo kale waa hal abuure qadka dhexe ah. sidoo kale waxa uu amaanay ninka la yiraahdo Trent Alexander-Arnold oo uu markaasi ku faanayo inuu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu hibada badan ee markaasi ka mid ah xidigaha uu markaasi tababaraha u noqday. marka taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool waxay rumaysan yihiin in ninka la yiraahdo Harvey Elliott uu yahay Andres Iniesta cusub ee kooxda kubadda cagta Liverpool, inkastoo sidoo kale aan meesha laga saari karin in qaar ka mid ah jamaahiirta Liverpool ay Arnold ku tilmaamaan in uu yahay Iniesta cusub. dhinaca kalena saaxiibayaal kooxda kubadda cagta PSG ayaa markaasi la rumaysan yahay in dhakhtar dhanka cilmi nafsiga ah ay u qabanayso xidigaha kooxda PSG si ay markaasi ugu guuleystaan xilli ciyaareedka dambe tartanka UEFA Champions League. wargeyska L'Equipe ee markaa ka soo baxa wadanka Faransiiska kana mid ah wargeysyada ugu waaweyn ayaa shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ay markaasi shaqaaleysiisay dhakhtar dhanka cilmi nafsiga ah ama psychologist ah si markaasi uu uga caawiyo in xidiguhu ay maskixiyan u hantaan tartanka UEFA Champions League. PSG oo haysata xidiga sare sida Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar Jr, Ramos iyo kuwo kale ayaan haddana aysan u suuragelin inay hantaan tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkii dhamaaday, waxaana PSG soo reebtay kooxda kubadda cagta Real Madrid oo lugtii hore ay gool iyo eber ku garaaceen balse lugtii dambe 3 gool iyo gool uga adkaatay.
magacaabista dhakhtarkan cilmi nafsiga ah ayaana la filayaa in kooxda ay markaa ka caawin doonto dhibaatada maskaxeed ee ka haysata qeybaha ugu muhiimsan ee tartanka UEFA Champions League. dhinaca kalena saaxiibayaal ninka la yiraahdo Jurgen Klopp ee hogaamiya kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa markaasi rumaysan in Sadio Mane uu sii ciyaari karo kubadda cagta ilaa uu ka gaaro da'da 38 sano ilaa 39 sano. macalinka la yiraahdo Jurgen Klopp ee reer Jarmal ayaa markaasi rumaysan in ninka la yiraahdo Sadio Mane uu markaasi sii ciyaari karo ilaa 38 sano ama 39 sano uu ka gaaro, maadaama uu leeyahay taam ahaansho waali ah oo jir ahaaneed. Jurgen Klopp ayaa aaminsan in ciyaaryahankan Senegalese ah uu markaasi sii ciyaari doono ilaa laga gaaro 2030 maadaama taam ahaanshihiisu ay tahay mid sare. 30 sano jirkan ayaa 23 gool u dhaliyay tartamada kala duwan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda kubadda cagta Liverpool, laakiin xagaagan ayay markaasi ka iibiyeen kooxda Bayern Munich iyagoo markaasi heshiis 35 milyan ah ugu wareegay kooxda Jarmalka una saxeexay heshiis 3 sanadood ah. saaxiibayaal ninkan la yiraahdo Mane waad aragteen tan iyo markii uu Liverpool ka soo mid noqday isagoo la oranayo waa uu ku maqan yahay dhaawac amaba dhaawac la jiifaamaan arag, marka taam ahaanshiisa ayaa ah mid cajiib ah, waana midda uu leeyahay Jurgen Klopp waa uu ku sii ciyaari karaa Mane ilaa 38 sano ilaa 39 sano uu ka gaaro ninka la yiraahdo Sadio Mane. dhinaca kalena saaxiibayaal Yaya Toure ayaa markaa qarka u saaran inuu dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League, laakiin markan waa isagoo waaxda tababarka markaasi ka mid noqonaya. ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee kooxda Manchester City ayaa dib ugu soo laabanaya horyaalka Premier League, waxaana uu ka mid noqonaya sida warbixinadu ay tilmaamayaan kooxda da'yarta ee naadiga Tottenham. xidigaha da'yarta ee naadiga Tottenham ayuu markaasi tababaro u noqon doonaa xidiga la yiraahdo Yaya Toure. horyaalka Premier League-na xilli ciyaareedkiisa cusub ee 2022-2023 ayaa saaxiibayaal bilaaban doona goordhow, keliyana waxaa naga hartay in la baasto keliya 10 maalmood oo horyaalka Premier League aynu markaasi dib u daawano hadduu Ilaahayna gaarsiiyo. sheekooyinka kale ee dhanka ciyaaraha saaxiibayaal waxaa markaasi qayb ka ah kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa in ay ka shaqeynayso dib u habeynta ama dib u dhiska garoonkeeda Camp Nou, waxaana maadaama ay la wareegtay shirkadda la yiraahdo Spotify Camp Nou markaasi garoonkii howlgelin fiican lagu sameyn doonaa, waxaana ay dib u bilaabaysaa mashruuca la yiraahdo Spy Barka oo markaasi dib u dhis weyn iyo qalabeyn loogu sameynayo garoonka Camp Nou. waxaa markaasi la jadwaleeyay oo kooxda horyaalka La Liga ka ciyaartay ee Barca ay markaasi jadwaleysay in inta lagu maqan yahay koobka adduunka ee lagu ciyaarayo wadanka Qatar, gaar ahaan bilaha November iyo December, markaasi hawsheeda amaba mashruuceeda la yiraahdo Spy Barka ay markaasi shaqo geliso oo garoonkaasi farsamadiisa qeybaha kala duwan dhismihiisa sare loo qaado markaasi la sameeyo inta u dhaxaysa September ilaa December 2022 oo koobka adduunka lagu maqan yahay ayaana mashruucaasi la hirgelin doonaa saaxiibayaal. dhanka kalena saaxiibayaal tababare Xavi Hernandez ayaa doonaya inuu dib ula midoobo Lionel Messi oo uu dib ugu soo celiyo kooxda kubadda cagta Barcelona. wargeyska Sport ee ka soo baxay Spain waxa uu leeyahay tababare Xavi Hernandez waxa uu maamulka kooxda Barca markaasi u sheegay in Lionel Messi uu doonayo inuu dib ugu soo celiyo Barcelona. haddaba Xavi waxaa markaasi uu ka shaqeynayaa sidii ay dib garoonka Camp Nou ugu midoobi lahaayeen isaga iyo Lionel Messi. ugu dambeyntiina saaxiibayaal waxaa markaasi la arkay markii ugu horeysay tan iyo markii uu ka mid noqday kooxda kubadda cagta Manchester United ninka la yiraahdo Christian Eriksen. xidigan xulka qaranka Denmark ayaan markaasi u raacin kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulamada isu diyaarinta xilli ciyaareedka cusub, warkiisana waa la waayay isagoo xitaa kooxda la tababaranayo lama arkin, waxaana ciyaaryahankii hore ee kooxaha Bamford iyo Tottenham uu heshiis 3 sanadood ah la galay naadiga Red Devils, laakiin tan iyo markii uu kooxdaasi kusoo beeray il lama saarin, waxaana markii ugu horeysay la sawiray isagoo maraya mid ka mid ah wadooyinka magaalada Manchester, isla markaana indho gorgorlayaal ayaa saaxiibayaal soo qabtay isagoo daladiisa wato oo markaasi roob badan uu da'ayo, dharka dhaxantana markaasi xiran oo isku joog madow ah. waad ku mahadsantahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan siina gudbiso. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayna sidaas iyo nabadgelyo.